munaasabad kooban oo lagu dhagax dhigay dhismaha masjidka Sheekh Xuseen Cadde ee xaafadda Suuq Xoolaha ayaa waxaa ka qayb galay culimo u diin iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka. Dhismaha masjidkan Sheekh Xuseen Cadde oo baahi weyn ay u qabeen dadka ku nool xaafadda Suuq Xoolaha gaar ahaan Ceel Turcaaye ayaa la qorsheeyay in laga dhigo 3 dabaq. Guddiga dhismaha masjidkan iyo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka Sheekh Xuseen Cadde ee magaalada Muqdisho. مسجد lagu magacaabay sheekheeni caalimka ahaa Sheekh Soomaal Sheekh Xuseen Cadde masaajid lagu magac daray ayaanu dhex taaganahay. masaajidkaas walaalayaal waa masaajid bilow ah oo wax shamiito ah iyo wax dhagax ah iyo wax bir ah oo agabkii lagu dhisi lahaa guud ahaanba wax loo hayo oo gacanta ku jira ma lahan. masaajidka xaafadda Cali Turcaaye ku yaala ee deegaanka Suuqa Xoolaha loogu magac daray Sheekh Soomaal Sheekh Xuseen Cadde inay soo taakuleeyaan akoonadooda, jeebabkooda, gacmahooda, qulubtooda, wujuuhdooda ay u furaan. masjidka masjid weyn in laga dhisaa la rabaa. sheekheena Sheekh Xuseen Cadde ku magacaaban marka sheekh cibaadadiisa iyo cilmigiisa aad ogeedeen oo caamilka ah ee cibaadada badnaay oo taariikhdiisu koraysa waxaa lagu magacaabay waxaa waaye inta maqasha waxaa la rabnaa ay kasoo qayb gasho masaajidkaas sheekhu ku magacaaban yahay in la dhiso in kharaj lagu baxsho in lagu tadawuco. masjidkaasi waxaan doonaynaa insha allahu tacaala in si hagarbax leh oo farxad leh oo maaragtay insha allahu tacaala nashaad leh inaan maaragtay dhismadiisa uga qayb galno, inaan waxaan heli karna aan qof walba ku bixiyo wuxuusan isagu hana karin saaxiibkiisa oo is leeyahay arrintaasi waa u dhagan nugul yahay amba diyaar u yahay inuu ka faa'iideysto inuu ka gado. maxaa yeelay addaalu cala alkhayri ka faacilihi sida maaragtay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ku cad waxaa waaye qofku hadduu khayr isagu qofka tusiyo qofka uu tusiyey sida intuu ka helo kale uu isna helayaa. sida culimadu ay noo sheegeen masjidka waxaa waqfay sheekhan garabkayga midig fadhiya Sheekh Maxamuud oo ah talaamiidii wax ka soo baratay ka soo faa'iideystay sheekheena Sheekh Xuseen Cadde. maxabo uu sheekhi jecel yahay iyo nooleyn cilmigii uu ka soo qaaday in ummadda uu ku fidiyo gaar ahaan xaafadan oo masaajidu ay ku yar yihiin deegaankuna aad ugu badan yahay ilaa hadda hareeraheena wax minaarada kama muuqdaan ayuu ugu talagalay Ilaahay miisaanka u saaro. baytullaahi in la dhiso oo laga dhisa la rabo baytullaahigaasoo loogu magac daray sheekheena Sheekh Xuseen Cadde radiyallahu anhu wa rahimahullah. marka booska oo maaragtay masjidka ayaa diyaarsan oo maaragtay aniga aan waqfay dhismaha oo maaragtay lagu dhisaayo oo 3 dabaq oo niyeysanay. ilaahay laga rabaa waxaa laga rabaa muxsiniinta iyo muxsinaadka oo na maqlaaya oo dalka iyo dibadda jooga inay u furaan qulubtooda akoomada iyo maaragtay meel kasta EFC-dooda iyo jeebabkooda inay u furaan iyo gacmahooda. saas ayaa la rajaynayaa oo ay ka faa'iideystaan sadaqada. masjidkan wax agaba loo haayo ma jiraan, dhulkiya meesha yaallo kaliya. waxaan rabnaa insha allah in lasoo bilaabo dhagaxa kii bilaabo keeni kara, kii ciidda keeni kara, kii bar keeni kara, kii shamiinta keeni kara. qof kasta wixii ka qayb qaadan karta insha allah aan uga qayb qaadano ama soo gurmano. waxay ila tahay haddii ay maaragtay la yiri sheekheena Sheekh Xuseen Cadde ayaa masjidkan loogu magac daray haddii la yiri waxay ila tahay in maaragtay si sahal ah oo ku dhismi doono ila tahay si sahlan inuu ku dhismi doono ayay ila tahay. waxaan u maleeyahay in maaragtay oo ku yaraadaan u maleeyahay dadka maaragtay aniga la wareeg aniga intaas la wareeg ana intaas qaatay in la yiraahan filaya. Cabdullaahi Axmed Nuur, Universal TV, Muqdisho.